maanta waxaan rabaa inaan lacag kala baxno abkan Hayvami oo lacag kala baxno insha Allah. Yani waxaa ula bixi doonaa qaybta Binance-ga insha Allah. Muuqaalkan daawada badan waxay soo qoraan lacag sidee lacag loola baxaa abkan insha Allah. So abka Hayvami ayaan gudaha u geli doonaa si aan lacag ula baxno insha Allah. Marka ugu horeyso waa inaan kuu sharxaa application-kan qaabka uu shaqeeyo iyo qaabka lacagta loogu sameeyo insha Allah. Qof walbana waxa uu lacag ka sameyn karaa. Soo jidaan qaybo badan uu leeyahay, qaybo caadi oo la ciyaarayo oo yani oo turshooyin game la ciyaaro lacag looga sameeyo iyo qayb waxaa jirto caadi ah oo lacag looga sameeyo. So meelo badan uu leeyahay marka adigana meelahaas waa ka sameyn kartaa lacag soo jidaan waa kasa level kasta gaarto si diyaar ugu siin doonaa. So hadda waxaan gelin doonaa qaybta withdrawal-ka si aan lacagteena ula baxno insha Allah. So shuruudihii hadda waa buuxinay oo $5 ayaa meesha noogu jirta soo jidaan waa kasa. So haddii aad ka samaysid 10 dad ka samaysid 50 haddii aad 200 500 ka samaysid waa la bixi kartaa intaba insha Allah. Muuqaalkeena ayaan kula wadaagi doonaa. So hadda maanta waxaan rabaa waxaan la buuxiyey shuruuda $5 ayaan ka sameeyey waxaan rabaa inaan kala baxo oon ku tuso qaybta withdrawal-ka oo taawana insha Allah. So withdrawal-ka taawan doonaa kadibna waxay weydiin doonaa waa kaas USDC ayuu weydiin doonaa oo yani Ethereum ah oo TRC 20 ah. Address-keedu waa inaan soo qaadaa marka mobile kale ka soo qaaday marka aan keyga hore u soo geliyey keyga aan hore u soo geliyey ma ogola marka haddii oo akoon cusub samaystid oo kale waa in address cusub aad ku xirtaa okay. So address qofka leeyahay ku xir rabaa si ula baxo insha Allah. Markastana waxa iska ilaa waxyaabahaas inuu ka diidaa laga yaabaa lacagtada ka lunta marka waa ka address-kana soo qaban doonaa Ethereum ka dooran doonaa. So kadib waxaan soo dhigi doonaa copy insha Allah. Copy markaas soo dhaho meesha kale ayaan gelin doonaa yani meesha kale oo yani address-ka ayaan gelin doonaa kadib waxaan ku dhigi doonaa paste kadibna waan aqbalnaa leenahay. kadib maxaa ii dhiman confirm dhaho lacagta xaqiijiyo kadibna aan la baxo biso kaliya ay dhiman waa ka kadib waxaan dhihi doonaa maadaama sidoo la baxo kadib waxaan dhihi doonaa confirm ayaa dhihi doonaa marka hadda confirm marka aan dhaho soo jida waa kasa ay soo qor waa soo jida wuxuu leeyahay ma aqbashay lacagtina la baxdo ma aqbashay uu leeyahay aniga waxaan dhihi doonaa yes waa aqbalay. So wuxuu leeyahay oo soo gaari doontaa soo jidaan waa ka processor ayuu ku jiraa uu leeyahay markii successful lagu soo qoro lacagtada uu soo gaari doontaa marka sidaas waa marka kadibna maxaa waaye lacagta waa ka hadda lacagta waxa way soo jidaan waa inaan si xaqiijina oo si fiirnaa lacagta la goostay iyo wixii soo gaari doonta insha Allah. So hadda gudaha u soo galnay oo yani waa ka soo jidaan cash out ka imaanay soo jida waa kaasa waxaan geli doonaa qaybta oo diamond-ka gali doonaa hadda waxaa soo jidaan waxa way dhahay 4 ku soo gaarayso nuzora laga jirtan faanti waa kasa withdrawal-kan wuxuu ku jiraa process markuu ka baxo imse qaadanay 7 maalmood ay qaadanay 7 days kadib ya lacagta ku soo gaar doonta insha Allah. Hadii soo gaartan waxa way share ay soo dhigi doonaa insha Allah. waa kaas application ugu dambeyntii lacagtii waa soo gashay waa kana lacagtii USDC ahayd waa ka waa soo gashay $4 iyo waxa ay soo gaartay $5. So ani bara u marinay $5 ay soo gaarsiiyeen so lacag badan ay jirteen aad u ma saaxiibayal